waxaan joognaa barakacayaasha waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Luglow waa meelaha dad ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo ay soo barakacisay abaarta soo noqnoqotay deegaamadan Jubbada Hoose ka dhacay dadka intooda badan waxay meeshan yimaadeen dhawaan waxaan hadda la soo kulannay dad iyagu maanta yimid oo ka soo kicitimay deegaano kala duwan gaar ahaan Jilib qaarkood waxay ka yimaadeen deegaanka Ceel la helay duruufo aad u qalafsan oo runtii waxa ka muuqata oo aad u adag oo shucuurta insaanka runtii qiiro gelinaysa dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed waa dad runtii xoolo dhaqato ahaa qaarkoodna beeraley ahaa oo nolol maalmoodkooda haystay laakiin maanta waxay haystaan malahan xoolihii waa uu ka dhamaaday beerihii waa ka qalaleen deegaamadooda waa ka soo kicitimeen waxay joogaan dhul aysan aqoon waxay joogaan meel aysan wax ku haysan hooy iyo biyo guriyaha aragteen cooshadaha ayaa ku jira oo caawa haduu hodo roob mahigan u yimaado waxa weey biyaha kama celin karo qorraxda kama celin karo dabaysha dhaxanta kama celin karto xaaladaas runtii waa xaalad u baahan marka haddaan marka hore Soomaalinahay inaynu walaalaheen u gurmano isla markaana aynu isku tashanno fariintaani waa fariin marka aanu caalamka oo dhan iyo walaalaheen Soomaalida ay dadka muslimiinta aan la wadaagayno ubadkaad arkaysaan oo yar yar oo iyagu iska faraxsan ma hubaan mustaqbalkooda wuxuu ku dambaynayo waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan biyo ma haystaan waxay noo sheegeen hooyooyinka iyo dadka mas'uuliyiinta ee kaamakan jooga in aysan haysan musqulo waad garan kartaa marka meel aysan musqul ka jirin meel aysan nolol kale oo asaasiyaadka noloshiisa ka jirin sida caafimaad darrada ay uga dhalan karto sida xaaladooda wax weeye iyo mustaqbalkooda ay noqon karto waxaan joogaa Luglow waan oomana aad baan oomana biyaha nadaafada wax badan baa ka dayacan musqulo ma lihin biyuhuna bahasha xunta baan ugu shubaa afar kan baan ku cabnaa والله إني هو أديك حاملين 6 حبين على العصوص عن الله 4 حبين حالنا أنت اللي إحنا أنت مبرين ظروفنا كانت الحقيقة هذا أنه كل حولي هنا مركا إلى كعبتنا ضد بيرالي هنا بيرالينا أبارة فرب بدن كان عند كل بيا اللي رجل بيوي لا يحبل اللي رجل بيوي يقولوا اللي الظروف تمشينا كانت تاسع إلا ساعدنا وإحنا قابل ما أركن روب لا مركي روب كأسدو لا حول من ولا لهنو أذنكم دلونا لهنو روب مدى كوجي مدى دارتي مدى هذا الآن كان روب ولا إيه مركسلون ولا ده بيرل تعب هاي بيري معلو تعبه بيه ماله حوالهم حقنا ولا هاي روب لهم كنا على مركي دله waxaan marka runtii la qiireysanahay isla markaana aan xanuun ka dareemayaa duruufta adag ee ubadkaasi mustaqbalkooda aan aqoon ay sugayso yaa u maqan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soqe qof kasta oo fariintan daawada ayaa u maqan oo waxa la rabaa in loo wada gurmudo. Assalaamu alaykum.